waxay ahayd munaasabad ballaadhan oo si weyn loo soo agaasimay taasi oo ka dhacday xarunta dhismaha warshadda waddooyinka ee ku taalla cidhifka galbeed ee caasimadda Hargeysa waxaana munaasabadani xilalka kula kala wareegayay duqa cusub ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ku-xigeenkiisa iyo weliba xubnaha golaha deegaanka ee dhowaan la doortay iyagoona xilka kala wareegayay maayarkii hore maayar ku-xigeenka iyo weliba xubnihii golaha deegaanka ee hore waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland madaxda gobolka Maroodi Jeex mas'uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka xubnihii hore ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa way horkacayeen maayarkii iyo ku-xigeenkiisii waxaana ugu horreyn goobta hadalla ka jeediyey wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda uu ka mid ahaa barasaabka gobolka Maroodi Jeex xogayaha dowladda hoose ee Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo u mahad celiyey golihii deegaanka ee hore muddadii ay joogeen waxyaabihii ay qabteen iyagoona soo dhoweeyey golaha deegaanka ee cusub ee uu horkacayo duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenkii hore ee caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne iyo maayar ku-xigeenka cusub Qadar Axmed Cumar haddii alla idmo waxaanu la iman doonaa qorshe cad kaasoo ah maamul daadejin kor u qaadidda rajada shacabkiina soo doortay wax badan bay naga filayaan ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa shacabkaasi waxay naga filayaan iyo rajadayna ugu qabaanba inaan rumayn doono haddii alla idhaa rag idiga fiican baa ku jira rag wanaagsan baa ku jira nin kasta wuxuu reerkoodii iyo magaalada kaga kaabengareeyay inuu maayir noqonayo ula hadla oo u ixtiraama rag oo dhan waxa deeqay ixtiraamkan adigu waliba Cabdikariin ahaan waad u dhalatay ixtiraamayna madax oo nin kasta ixtiraan fikirka khaldan xildhibaanku kuula yimaado dadka kula hor hadlin gaar u la foqo waxa tira xildhibaan waxaas way khaldan inay ga daawalaal dhinacooda iyaguna waxaa goobta ka hadlay maayarkii hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko kaasi oo ku dheeraaday waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilka hayay sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay Cabdikariin Axmed Mooge maayarka cusub ee magaalada Hargeysa oo isaguna fariin u diray bulshada ku dhaqan caasimadda shaqaalaha maanta aan halkan ku wareejinayaa koow shaqaalahan ugu horeynayaa waxa weeyaan 1094 xarunta ah shaqaalaha degmooyinka 556 ah shaqaalaha maamul daadejinta ee waashmaanada ee ka shaqeeya isbitaalada iyo MCH-yada oo 127 ah ciidanka debdemiska oo gunnada intaanu siinaa 122 yihiin dadka taagga daran ee qowanaha ee aanu ku hayno caasimadda 206 2,150 ayaa u soo xaadira bishii igunooyin dawladda hoose Hargeysa dhaqaalaha markaan ka hadlo dawladda hoose Hargeysa waxaanu la wareegnay 2013 January 5 baanu la wareegnay miisaaniyadii ugu dambeysay aanu la wareegnay golihii naga horeysay oo nu mahadnaqayo waxay ahayd 24 bilyan 327 milyan 148 maanta waxay maraysaa miisaaniyadda aanu wareejinaynaa inay tahay 97 bilyan shacbiga waxa laga rabaa inaad cashuurta bixisaa laga rabaa waxa la doonayaa inaad wax ka bedesho habdhaqankaaga inaad caagad biyo ka cabto oo tuudada ku tuurto inaad jaad cunto oo curubta ka goosto qoryaha ku tuurto inaad haddii ilaahay idamkeeda leeyahay sigaar cabto oo baakadka wadada ku tuurto in haddaad suuli weydo wadada aad ku saxarooto inaad xoolahaaga magaalada ku soo deysato arrimahaas oo dhan baa la doonayaa inaynu wax ka bedelo habdhaqanka qofku ilaa isbedelana Hargeysa isbedeli mayso waxa la doonayaa haddaad gaari wadato inaad isbedesho saad u kaxaynayso waxa la doonayaa dhagaxa hortaada tuulaneed gurigaaga hor dhigatay dhagaxa intaan laga gurin maanta chance haysataa dhagaxaaga meel sii geyso Hargeysa ma dhaxoolayo quruxna naga dooni maysid hortaadana buuro dhagaxana dhigan maysid gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaanu la dardaarmay maayarka cusub iyo golihiisa deegaanka Cabdikariin aynu hawsha uga soo shaqeynay sidii baa laga rabaa inaad golaha ku hogaamiso Cabdiraxmaan waxaan leenahay maayarka ka sokow in lagu doortaad golaha ka mid tahay xil gaar ah wuxuu ka saaran yahay inaad si gaar ah maayarka ula shaqeyso waayo aragnimadaada ku kordhiso talooyin waxaad u baahataa aad siiso axsaabta siyaasiga waynu kala ahaanaynaa
waynu kala nahay laakiin maxaa diidaya ninka wadani iyo ninka ucid iyo ninka kulmiye ama gabadha in ay dariiqa horumarka dalka ay wada maraan iyadoona ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed uu xilka u kala wareejiyay labada maayar iyo labadooda ku xigeen waxaanay intaasi kadib kormeer ku soo mareen gudaha xarunta warshadda dhismaha wadooyinka ee ku taala cidhifka galbeed ee caasimadda Hargeysa oo iyadu ahayd goobta ay ka dhacaysay munaasabadani. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa.